labadan lamaane waxay ku heshiiyeen inay dadka caayaan ila daawo horta soo adiga naagaha caay maxaa shib u tahay ma ka cabsanay mise aniga caayo macal siilkoodii aan sheegaa oo ma adiga inaad ugu khasbin naagaha adiga caay aniga nimanka waay aniga niman waad u jeedaan waa laba qof nin inaag isqaba waxay ku heshiiyeen inay dadka caayaan ninka ayaa wuxuu leeyahay naayaa gabdhaha adiga caay anaa wiilasha caynaya gabadh intay hoos ka dhahday ay waxay dhahday labadaba adi caay mar wuxuu dhahay ani labada ii dirne nimankaas ka dhicinaya gabdhaha iska dhici marka ma aragti adiga qof famil ah oo ku heshiinaya haddana dulmi Soomaali xaaladaas ay maraysaa weligeed ma dhicin nin inaag isqaba inay social media soo istaagaan oo ay ku heshiiyaan yaa adiga naagaha caay ama gabdhaha caay anigana wiilasha caynaya Soomaali xaaladaas ay maraysaa xishoodkii iyo wixii iyo yaa way ahaadeen iskuma jixin break iskuma qabto qofba wuxuu habeenka ku fikira ayuu berito sameeyaa marka adiga idaabanaya gabadhaada intaad social media soo fadhiisisid ma dhihileed naayaa gabdhaha caay anigana wiilasha caynaya hadday jawaabtaadu haa tahay commentiga igula wadaag hadday jawaabtaadu may tahana kasii fiican commentiga igu soo qor aad iyo aad umahadsantihiin wiil ayaa wuxuu ii sheegay in xilligii uu noolaa Sheekh Cabdiqaadir Jilaani mararka qaarkood dadka markay magaciisa ugu yeeraan iyagoo aan weeso qabin inay dhiman jireen adiga idaawanaya ma aaminsan tahay in sidaas ay dhici jirtay ilaahayna abuuray ayaa anagoo weeso qabin aan caabudnaa aan magaciisa ku dhawaaqnaa mana dhimano ila daawo Sheekh Umul muxuu leeyahay kiba rugmaday sheekh magaciisa weyse qablaan uu la sheegay lagu baabay kadibna sheekhi baa loo dacwooday war Sheekh Cabdiqaadir dadkii rugmadaa leeyahay magacaagaan lagu rugmado lagu tawassul haya weyse la'aan sheekh ilaahay buu bariyay kadibna arrintii ummadda waa laga dul qaaday walu fiirsada ilaahay baan ku dhaariyay ilaahay magaciisa iyo dhikrigiisa waa la xusi karaa adoon weyse qabin bi ijmaa'i ulama adoon weyse qabin ilaahay waad xusi kartaa magaciisana waad sheegi kartaa bi ijmaa'i ulama khilaaf kuma jiro dariiqadiina waxay tiri Sheekh Cabdiqaadir Jilaani magaciisa weyse laan hadii la sheego waa lagu dhiban jiray هل يصدق هذا عقل سليم يا عقلي في يوميا وحرمين كره طيب